magaalada muqdisho ayaan sheeko idinka haynaa wiil dhalinyaro ah oo markaasi hal abuuray burjikada lagu karsado cunnada ama raashinka taas oo uu ka sameeyay caagadaha ama jirgaanada hore loo isticmaalay oo uu dib uga farsameeyay burjikadaas ayaa hadda la isticmaalaa oo dadku ay cunnada iyo sidoo kale shaaxa iyo waxyaabaha kaleba ku karsadaan sheekada arrinta ku saabsan waxa uu kuurgalay Cabdishakuur Shaasha oo muqdisho nooga soo waramay barnaamijkan waxa la sameeynaa aariyada oo macnaha air control-ka ka baxa maskax shiil Soomaali ah ayaa mu'allif ka ah ashiyaadan la isu geeyay ee loo adeegsado karinta cuntada taasi oo dabka looga dhaliyo hawo ama gaaska aan la arag isna airka xaq soo baa halkaan oo galaya marka halka ku xirtid waxa sameynaysaa balkan bam aariyada ma shaqeynaa macnaha marka waxa la rabaa in la aariyo waa aariyeynina laba caagadood oo kamid ah caagadaha qajaclayaasha loo yaqaan iyo jirigaan 20 la ah ayuu ka dhalinayaa dabka waxaana qajaclayaasha midkood ku jira biyo halka kan kalena uu ku jiro batrool barnaamijkan wuxuu ka kooban yahay caag 20 la amse jirigaan si loo yaqaano tubooyinka yararka loo isticmaalo gaaska ama fuelka kale oo baabuurta isticmaalaan benzin iyo xukuumaha iyo biyo intaas oo la isku geeyay ayuu ma aragtay ka dhalana dabkan bamka lagu aariyeeyo lugaha mootooyinka iyo baaskiilada ayuu u adeegsanayaa naqaska uu ku shubayo 20 laha waxaana 20 laha ku xiran tubo si toos ah ugu tagaysa labada qajacle ee ku jira biyaha iyo batroolka kadibna waxa dhalanaya hawo dab wadata oo lagu karin karo cunnada airkan aan la furin dabka ma shidmaayo macnaha marka waxa sameynaysaa airka furaysaa waxa halka kaaga muuqdo waa airkii halkan ka baxay marka waxa sameynaysaa marka saa airka kugu shaqeeyo waxa sameynaysaa dabka sidaas oo kugu shidmaayo macnaha marka sidoo kale air control jikada Cabdulqaadir Maxamed Ismaan mu'allifka aaladan ayaa ii sheegay in ujeedada ugu weyn ee uu ka leeyahay sameynta aaladan ay tahay in la badbaadiyo dhirta oo xaalufin ba'ani ay ku hayso Soomaalida marka barnaamijkan wuxuu ugu dhashay xilli hore sabaha ugu dhalin waxa kamid ahaa anigoo ah horta marka hore arday barta cilmiga beeraha iyo deegaanka jaamacadda SIU sabaha ugu dhalin waxay ahayd maadaama aan wadanka oo ka jira xaalufin ba'an oo yaani lagu hayo dhirti ayadoo maaragtay loo isticmaalayo qaab maaragtay in dabka lagu shito kale iyo sometimes dadka qaar ay u isticmaalaan inay dhoofsadaan marka local ahaan waxa barnaamijkan sabaha ugu dhalay ka mid tahay in loo isticmaalo si loo yareeyo dhuxusha macnaha isticmaalkeeda iyo jaridda geedaha lagu hayo taasa sababta ugu weyn ahayd in aan barnaamijkan ku dhaqaaqo wax ka yar 15 daqiiqo ayuu dabkan ku kariyay jalmad ama kirli shaah ah oo la dul saaray waxaana ay u muuqataa in tani ay tahay fursad ay ka faa'iideysan karaan Soomaali badan hadiiba ay fahmaan si marka loo eego jikooyinka gaaska ee lagu iibiyo magaalada lagana keeno dalka dibadiisa aad ayuu uga fudud yahay ugana raqiisan yahay qiimo ahaan waxaana samaysan kara qof walba oo isku daya hadiiba uu go'aansado sameynta aaladan isaga oo badbaadinaya dhirta dalkeena gaaska caadiga ee dadka isticmaalaan wuxuu ugu duwan yahay gaaskaas waa aad u qaali u yahay qodob koowaad tan labaadna dadka inta badan ma samaysan karaan dadka dalleedo kale ma samaysan karaan waxa yeelay waa aad u qaali u yahay waa $110 lacag leeyahay camal waa marka dadka danyarto kale kuma dhiiran karaan inay ma aragtay kaas iibsadaan sida hadda kanoo kale waa cid walba oo yaani oo iska danyar masana cid walba oo maxaa la yahay oo midalla masana meel sare joogto waa iska isticmaali karaan waxa yeelay qofka kan isticmaalaya kan gaaska isticmaalaya waa isla sidii waa kiriska waa isku sidii
كل وحا فرق ودحين waxa waay inuu kaas qaali yahay kan oo iska raqiis noqon karo macnaha samaysankiisa qofka hadii uu ku dhiiran kara hadii uu iska iibsanayo ma aragtay kaas waa ka jabnaan kara macnaha godashada iyadoo laga wada sameeyahay waxa la soo wada iibsanayo kan waa ka raqiisan yahay macnaha muhiimadda koowaad ee gunaanadka waxa waay warka waxa waay waa kaas aad u qaali u yahay danyartana ma heli karaan laakiin kan waa mid ma aragtay aad u yar meel walba laga heli karo macnaha sidee ku heshay biyo iyo bensiin iyo caagadahan aad isku rakibtay haddii aad isku rakibto inaad helayso dab sidee baad ku heshay arrinkaas wallaahi adduunyada waa technology-da aad ugu horumartay shalay meesha la joogo maanta lama joogo waxa waaye waa horta ugu horreyn ilaahay garansiiyey nimcada ilaahay in lagu maaragtay lagu shukriyo mudan tan labaadna waxa waaye waa maskaxda loo dhalaaliyay ay ka timid in barnaamijkan la soo saaro muddooyinka dambe waxaa gudaha dalka ku soo badanayay hal abuuro ay la imaanayeen dhalinyaro Soomaali ah oo jaamacadaha dalka ka aflaxay kuwaasi oo la yimid aragtiyo naadir ah samayntooda waxay sala yihiin dhammaantood garab istaag iyo maalgelin lagu samaysto iyaga si looga faa'iideysto maskaxdooda caafimaad ka qabta Cabdishakuur Shaasha RTN Muqdisho